waxaa bilaabanayna xafladeena quruxda badan ee aanu ugu dabaaldegayno maalintii xorriyadda ee 1 Luulyo sanad guuradii 6aad waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaan mas'uuliyiinta maamulka degmada Wallaweyn oo xafladan quruxda badan qayb ka ahaayeen markaasina ay nagala soo qayb galeen aad iyo aad u mahadsan yihiin sidoo kale dhalinyarada iyaguna aad iyo aad u mahadsan yihiin gabdhaheena quruxda badan way mahadsan yihiin xafladeena maanta waxa ay noo daahfuraya taliyaha saldhigga booliiska degmada Wallaweyn Maxamed Cabdulle بسم الله الرحمن الرحيم دمان مسؤولين تا دقمة واللوين دلنيرة دقمة واللوين حوينك دقمة واللوين دمان تينو هاي السلام يا مرك هوري سلامتك إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب ما أنت وحبينكي كود اللوليو ومد الصوماليات إسرائيل لبدا قبل كوفري وقوي إسرائيل علن كان مركو نوم بدوبي وحبينكاس وتاريخ ومد الصوماليات أي ليه هاي ولقيت اللي هان دون تود إلهي هذا أنت أي ويل الصوماليات جوه تاريخ داس ما هن مد إله بدون عاود دقمة واللوين وهكذا عاية وأوجدان وروح لو سمعي دبالدق لو دياري آد بين أمهات سيهين لأن يدك سوق غيب قشي مسؤوليتك سوق غيب قشي سنافيس إلى سوق غيب آد بين أمهات علينا سنة كيسين إلهي نجارسيو أنا وقف ما قبله وبلاهي كورا يا إنه بدنا نجارسيو يا إلهي كبرينا دبعتوين كنا هيستن إن إلهي نقدر القاضي إن إلهي كبرينا مركب ما حسنتين ألك سي بدل مايو حبيب وناكسن معنا وناكسن إيد وناكسن دبعتين هذه وما سيها تليها سلق بوليس كدقبة واللوين تليه محمد عبد الله حسن هذه أدنى وكم هذه علينا وحنا هاتنا ميكروفون وغيره يا مد كمذا رقع داياش لسوشق دولة دحيم مدة 9 سنة واحد بدنا كور هاي تاريخ بدنا إنه هاي أستاذ إسماعيل روبو أستاذ وحكي له يصدقوا Soomaaliya maamulka koonfur galbeed Soomaaliya noolaada marka ugu horeysa waxaan halkan uga mahadcelinayaa xafladan quruxda badan ragii soo agaasumay oo ugu horeeyo Saxufi Abdiqani official oo aad ula shaqeeya maamulka degmada Wallaweyn markastaba ana garab taagan waxqabadkooda iyo xaaladaha macna waxa degmada mar waliba u gudbiyo macna waxa cidii markaas ay qusaysay macna waxa isagan u mahadcelinaynaa marka labaad waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha
odayaasha culamaa u diinka dhalinyarada ururka haweenka maamulka degmada taliyaha booliiska gudoomiyaha kusimaha gudoomiyaha degmada dhammaan waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sida aad la wada socotaan horta waddan kastaba wuxuu leeyahay taariikh annaga maanta waxay inoo tahay maalintii qiimaha weyn inoo lahayd oo noogu farxad badnayd adduunyada intaan soo marnay maxaa yeelay waddankan wuxuu soo maray gumaysi ayuu soo maray taariikhdu markay ahayd 1960kii ayaa maanaa waxaan qaadanay xornimo qaadanay maanta waxaan u taagannahay xuskii xornimadeeni ayaan u taagannahay xornimada kaliya maaha waa maalintii haddana gobollada waqooyi Soomaaliya iyo gobollada koonfureed ay midoobeen oo ay isku darsadeen maana waxa waaye midnimo qaran Soomaaliyeed calankan aad arkaysaan buluuga ah oo leh xidigta shanta gees fikradeeda waxay ka timid waqooyi waxay keentay calanka oo buluuga ah koonfurna gobollada koonfureed iyagana waxay ku dareen xidigta shanta gees ah horta sidaa u faahmo xidigtaas shanta gees ah annaga markaas waxaan lahayn hami in Soomaali badan ayaa maqnayd markaas ku jirtay gacanta gumaysiga xidigtaas shanta gees ah waxay tilmaamaysay Soomaalida gumaysiga ku jirta iyo labada hadda markaas xornimada qaadatay kuwa gumaysiga ku jirana waxay ahaayeen Djibouti Soomaali galbeed iyo NFD labada oo markaas xornimada qaadatay waxay ahaayeen Soomaali waqooyi galbeed iyo Banaadir xornimadaas kuma imaanin cayaar kuma imaanin rag badan ayaa u dhintay rag badan ayaa maana waxa waaye u naafooway dhibaatooyin fara badan ayaa loo soo maray dadaa maana waxa waaye hantidoodii geliyay dadaa gabdho waxaa jira oo furay maana waxa waaye katiinooyinkoodii dahabkoodii maana si ay Soomaali xornimo u gaarto iyada aayaheeda uga tashato maana waxaa loo soo maray dhibaato aad u fara badan ayaa loo soo maray maanta waxaa annaga ilaahay waxaan maraynaa sanad guuridii 60aad waxaa ka soo wareegtay waqtigii aan xornimada qaadanay 60 sano ayaa ka soo wareegtay maanta waxaa 60kii ayaan qaadanay maantana waxaa la joogaa 2020kii ayaa la joogaa waxaa ka soo wareegtay 60 sano marka xornimadaas iyada ah maana dhibaatadaas iyo rafaadkaas loo soo maray maanta ma ahan annaga inaan maana waxa waaye aan dhulka gelino oo aan ku ciyaarno ama aan ka dhigno waxaan waxba ahayn oo maana waxa waaye siyaabo qaldan inaan u adeegsano looma baana maxaa yeelay ragaa u soo dhintay dantooda waxay ahayd inay Soomaali midowdo aayaheeda ka tashato horumarkeeda maana waxa waaye ka dadaasho la tartanto maana waxa waaye dawladaha kale caalamka inay la tartanto oo maana waxa waaye sida oo hadda kuwa warshadaha yeeshay iyo maana inaan heerkaas gaarno ayaa hamigeenu u yahay okay marka waxa waaye maadaama ay hadda dadkaas ay heerkan la soo gaarsiiyeen annagana waxaa la rabaa inaan hal abuur la imaano hal abuur la imaano Soomaaliya waad ogtihiin waxay soo martay waqti oo macna waxa waaye aad u qalifsan waa burburay soo martay waxay soo martay waqti oo macna waxa waaye qabiil la isu dilaaya nooc walba soo martay waxaan rabnaa waqtigaas inaan ka guurno aan u gudubno waqti macna waxa waaye Soomaalidu ay gacmaha is haysato oo aan midowno oo horumarkeena aan ka shaqeyno la dagaalano musuqmaasuqa aan la dagaalano oo qabiilka aan la dagaalano oo la dagaalano macna gaajada la dagaalano wax walba oo markaas ummadan dhibkeeda ah inaan la dagaalano ayaa macna waxa waaye hamigeenu u yahay waxaan rabnaa idinkana waxaan rabnaa dhalinyaro xornimada oo maanta aan ku naaleynayno waxa u badnaayeen dadkii oo soo dadaalay waxay ahaayeen rag dhalinyaro ay ahaayeen oo xornimada waddanka gaarsiiyay okay waddankan waxa dhisi kara ama dumin kara dhalinyaro waaye marka waxa waaye waddankeena inaan dhisano diyaar mu nahay okay marka waxaan rabnaa in macna waxa waaye qof waliba uu ku dadaalo in waddankan horumarkiisa inuu ku dadaalo inuu macna mar waliba fikirkiisa uu noqdo inuu in mana ummadan ay noqoto ummad mana waxa waaye
horumarsan ee cadaaladda ka shaqaynayso ee midnimada ka shaqaynayso taasaa inoo ballan ah callankeenaas buluugga ah dhibaatada la soo maray waad ogtihiin aan waardiyeysano wasalaamu calaykum waraxmatullahi aad iyo aad u mahadsan yahay ustaad Ismaaciil waxaan u malaynayaa wax badan oo annaga aanan ogeyn ama daraasad badan annagu aanan ku sameyn inuu inoo sheegay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan dhalinyarada qurbo joogta ah ee barnaamijka inuu qabsoomo markaasi ay ku dhiiradeen ugu horeeya Cabdiraxiin Xaaji Maaxi bila boqortooyo iyo dhalinyarada Sacuudiga iyo mataqaanaa South Africa jooga intaba aad iyo aad u mahadsan yihiin waan u mahad celinaynaa waxaan rabaa inaan markaa mikrofoonka ugu yeero si asigana kelmadiisa quruxda badan oo inoo la wadaago ustaad maxamed abuukar cumar dhammaan inta meelka kulanka siin wada salaamay siin wada dhantaan salaanka siinka salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sanad guurwan sanad guurus wareegtay 60 sanadood kun isaabo 60 kan qaadani xurmadii labada koofri iyo qoyska darsanshe dawadagshi roogna hadda kulli hambaliyo kulli sanad guuridii ilaa darsiyo dhammaantiin نود نواسيك محمدية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad iyo aad u mahadsan yahay waxaan rabaa markaa inaan halkaa ugu waco walow waqtigu isgurayo markaasi laashimiintii iyo dad badanna iyo gudoomiyaha degmada Wallaweyn oo markaasi asagana waqtigiisa quruxda badan markaa xafladan uu inagula qayb qaadan doono waxaan rabaa inaan halkaa ugu yeero malaaq Cumar Daawud waxaan ku leeyahay malaaq soo dhawow dhammaan inta meesha isugu timid maamulka degmada taliyaha booliska ciidamada booliska dhammaan dhalinyarada hooyooyinka gabdhaha ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ururka dhalinyarada degmada Wallaweyn dhammaantiin waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum salaam kadib maanta anagoo ku naaloonayn xorriyadda maalinta qaadanay kowda luulyo 1960kii maantana 2020 anaga aan taaganahay ilaahayna gaarsiiyay waxaan ku mahadsannahay Allahayna gaarsiiyay aan ku mahadsannahay waxaan soo marnay ummadda Soomaaliyeed waa ogtahay 60 sano ka hor wixii la qabtay ayaa maanta anaga daali dhac ayaa ugu jirnaa waxa loo baahan yahay dhalinyarada reer Wallaweyn inay midnimo muujiyaan ee isqabsadaan ay u hana qaadaan sidii deegaankooda u dhisan lahaayeen awaamirtan xurriyadda maskiga imaanin shaaka ma ku imaanin wada hadalna ma ku imaanin wuxuu ku yimid dhiig iyo hanti ayaa loo soo baabi'iyay 60kii dadkii ka horeeyay qontamayadii ayuu bilaawtay dagaalkan dhibkana waxaa soo maray dadkii annagana soo gaarsiiyay maxay noo soo gaarsiiyeen annaga inaan miraha guran wax waliba Soomaaliya waxaan dib u dhacno waa ogtihiin waqtiyada dib noo dhigi iyo wax noo dhigi waa qabiilka aan ka gudubno aan u jeesano midnimada ummadda iyo hana qaadashada mataqaanaa dhulkeena sidaan wax horumar ugu sameyn lahayn hadafka aan tiigsanayno haddii aad jadwal u degsanin waxaa qaban kartid male deegaanka waxaan ka codsanayaa in dadkiisa iyo dhalinyaradiisa inay maaragtay isku midoobaan ay degmadooda u horumarsadaan waayo waxaan dhibka loo soo maray iyo maanta siday tahay annagoo u jeedno wax waliba oo lala maray musuqmaasuq daal dhib ayaa ku dhex jirtaa waxaan iga codsanayaa in deegaankeena aan ogaano maamulkeena aan la shaqeyno horumarkeena aan ku dadaalno annagana aan ismideyno magaalo aan dhalinyaro wax ka qabanin wax ma qabsamayso dhalinyaro hurdada ka kaca assalaamu calaykum wa tacaala wa barakaatu aad iyo aad u mahadsan yahay malaaqa waxaa kaloo rabaa markaan inaan xafladeena quruxda badan ee aan ugu dabaaldegayno xorriyadda kowda luulyo sanad guuradii 60aad ee ka soo wareegatay waxaan rabaa inaan halkaa ugu waco gudoomiyaha degmada Wallaweyn
mudane maxamed cabdilaahi koosto mudane guddoomiye waxaa ku leeyahay soo dhowow. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد marka hore waxaan salaamayaa madaxda sare ee dowladda Soomaaliya oo ugu sareeya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraheena Xasan Cali Khayre gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Muuse Sheekh Cabdiraxmaan gudoomiyaha aqalka sare iyo madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafdi Kare gaba ahaan waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed hambalyo 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 oo sababta oo kooda luulyo dadka markay ay wax sheegaan laakiin waxay tahay dad badan aan aqoonin kooda luulyo marka runta isu sheegno waa maalintii ay midoobeen gobolada Koonfureed iyo kuwa waqooyi waa maalintii aan qaaday xornimada oo Soomaaliya markii kooda luulyo la dhaho 26 dad ayaa waxay sameynayaan ayadoo xafladaheedii ama taariikhdeeda laga sheekaynayo iska hadla ama iska kaftamaayo dadna dhiigooda u baxay dadna way u dhaawacmeen kooda luulyo dadaa u dhintay dadaa u dhaawacmay dad badan oo Soomaali ah taariikhda ayaa maanta dhulka ugu jira xafladda maanta aan joogno ma ahan in la yareysto dhalinyaro waxaan rabaa inaan idiin sheego waxa ay tahay kooda luulyo laftirkeeda kooda luulyo waa maalintaad ka xorowdeen gumaysigii Talyaaniga dadkii arrinkaas ku dadaalay ee ka xoreeyay cadawga dalka Soomaaliya ma aysan fadhiisan waxay leeyihiin taariikh badan dalal badan oo Afrika maanta nabad ah waxa xornimadooda sabab u ah Soomaaliya marka annaga oo taariikhdaas leh ayaa nasiib darro waxaan dhacday inaan iska qabsanno annaga isku mashquulno wadamo badan oo hadda annaga aan jaarnahay oo hadda noo maray inaan ka liidano ama hadda arrinkeena ku mashquulayo ayaan aabbo u nahay oo aan xornimada annaga u keenno marka oo anigu taariikhiyan oo 26ka iyo kooda luulyo markaan maqlo haddaan socdo waa istaagaa haddaan jiifo waa fadhiistaa sababtoo ah waa waxaan ku faano oo taariikhda oo adduunka noo gashay oo aan isleeyahay waa maalmo gaar idin ah oo astaan gaar idin leh marka kooda luulyo waxaan markas idin sheegayaa taariikhaha aad leedihiin adkaysta adduunka waxa lagu faano waa taariikh wadamo yar mooyaan inta kale gumaysi ay soo mareen maalmahoodana waa weynaystaan annaga haddaan Soomaali nahay in kooda luulyo la weyneeyo 26 la weyneeyo xafladaha intaan laga sii badiyo ayaan rabnaa sababtoo ah jiilkii 60kii waxay ahayd joogay maanta ma joogaan dadaa waxay jireen markii ay kooda luulyo ay maqlaan ooyi jiray oo aaway ciil muujin jiray waxay soo mareen nimankii aabiyaashood ay ku dhinteen agoomo ku noqdeen kooda luulyo lama yaro marka annaga waxay nala tahay maalin farxad ah aan ka baxnay gacantii gumaysiga waxa dhibaatada maanta noo geystayna waa wax daciif ah dadnimada aan ku ficneen islaamnimada aan ku ficneen soomaalinimada aan ku ficneen ayadoo dhaxan ku hayso oo dhaxantu saa'id tahay oo busto adoo arkay baati muganayd kor u sheega adigoo haysto dhaxan ku hayso oo busto haysta baati muganayd qarannimada Soomaaliya waa busto qabiilkan waa baati sidaa daraadeed inaan ku dadaali lahayn qabiil iyo wax aan laga tagay aan ku dadaali qarannimada ummadda Soomaaliya mid labaad aan idin raacinayo keebaa jecel ayadoo joodari meesha yaal inuu ku jiifto darin maleela intiina ayadoo joodari agtaada yaal inaad ku saacatid darin aad soo jiidatid haddii aadan rabin soo qarannimo haddaad heshaan joodari nabadeed aad ku jiiftaa oo qaranaad tahay qabiil aad iska dheeraysay joodari aad ku jiiftaa haddii laakiin qabiil aad daba geshid waxaad ku jiiftaa darin sidaa daraaddeed waxaan rabnaa midnimo waxaan anfacayo waa midnimo
ummadda soomaaliyeed soomaaliya iskale ilaahay wuxuu nagu manaystay waxaan leenahay bad 3,333 mayl ah haddii nin kastoo soomaaliya subaxdii uu u aado wuxuu rabo uu ka heli karo waxaan leenahay dhul beereed aad iyo aad u weyn raas casar raas kabooni meel kastoo la beero waxbaa ka baxo waxaan leenahay xoola oo haddii markab lagu daldaray lugta lagu waday sii dhammaan waaye noo sii badanay oo ilaahay nagu manaystay marka inaan annaga isku mashquulno annaga maanta aan beesha caalamka aan ka tuugsano macaawin iyo wax la mid ah soo ceeb laguma ahan sharafkeenna karaamadeenna dadnimadeena waxay ku jirtaa inaan isku tashanno waddankeena aan ka shaqaysano aan midnimada ka shaqayno soomaalinimada aan ku faano soomaalinimada aan weynayno waxyaabaha qosolka igu dilaan waxaa ka mid ah afkii soomaaliga ee aadka u qurux badanaay ee soomaalinimada weynaynay ayaa hadda waxaa laga sii dhigaa daciif marka waxaan idiin sheegaa wad afkiina hooyo iyo dalkiina hooyo waa lama taabtaan sababtoo ah ninaan saaxiibanaha isku meel ku wada kor hal iskool ka wada baxnay ayaa wuxuu ka yimid ingiriiska markaasuu yidhi master coast how are you anigu garan maayo anoo aqaana garan maayo sababtoo ah ma jooga maraykan ingiriis ma jooga soomaaliya jooga walaal macaan see tahay assalaamu calaykum waa igu fileen soo aniga igula hadlaa luuqad qalaad marka annaga markaa runta isu sheegno soomaaliya nahay afkeena annaga iskale wadamada caalamka haddaan afaf kale ku hadalno kenya ku hadlaay marka arrinkaas waa arrin lama taabtaan ah soomaaliya iskale midnimada aan ka wada shaqayno horumarka aan ka wada shaqayno wanaagga aan ka wada shaqayno waxaa la dhahaa qofka haddaadan waxba u tarayn waxa u dhimin haddaadan soomaalinimada wax u tari karin waxba ha u dhimin bannaanka ka mar yaysan waxba kugu sheeganin laakiin waxaa idiin sheegaa inaan ahay dad afrika dadka ugu taariikhda dheer oo ugu dadnimada badan ugu sharafta badan oo maanta la dhaho waa soomaali dad wax yaraba laga samaysto ma nihin marka sidaa daraaddeed waxaa rabnaa dhallinyarada yaryarka ee hadda da'doodii ay ka yartahay 20-ka 1 luulyo waa maalin idiin weyn yaan la idin yaraynin waxaa la isku dayey in la idinka dhumiyo waxyaabihii taariikhiga ahay waxyaabaha taariikhiga soomaaliya 26-ka gobollada waqooyi xornimada qaatay 1 luulyona waxaa qaatay 2 gobol la isku daray sidaa daraaddeed insha Allah intaan annaga maamulka hayno waxaan ballan qaadaynaa inaan wadada qabiilka aan ku leexan doonin aan soomaalinimo aan u shaqeyn doono corruption aan iska ilaalin doono aan raadin doono wax laga maqan yaa yaqaan wax laga maqan cadaalad waay annaga haddaan heer walba cadaaladaan rabnaa annaga sinaanaan rabnaa annaga waxaan rabnaa horumaraan rabnaa annaga wanaagaan rabnaa lama deeqo qabiil lama deeqo deegaan sokeeye lama deeqo iska qabsi lama deeqo cadaalad darro waxa ilaahayna uu lagu jeclaanayo annagana isku jeclaanayna waxay tahay inaan samayno cadaalad justice marka oo cid kasta ee heer walla weyna waa heer walla weyn sababtoo ah ninka wuxuu leeyahay gurigiisa nin jid lama jiro nin jid sheegan kara ma jiraan nin walba gurigiisuu leeyahay ninka gurigiisa walla weyn ku yaalan waa reer walla weyn walaalaan nahay islaamaan nahay soomaaliyaan nahay soomaalinimadeeda aan weynaysano aan ka dhigno annaga ayaa isweynayn kara aan isweynayno marka mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan nafteeda kula dardaarmaya in aad qabiilka ka hormarisaan soomaalinimada heer walla weyn waxyaabaha annaga aan u baahanahay maanta caqabadaha nuga ayaa idiin sheega walaalayaalow waa dadaalaynaa oo dowladda soomaaliya ka codsanaynaa inaan helno iskoolo caalami ah si ilmaheena ay u bartaan aqoonta nafta gaar ahaan halkan waxaan kaga codsanaa madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya in iskooladeenna uu ka dhiga lacag la'aan si aan kaga baxno jahliga dadkeenu waa beeraley dadkeenu waa dad fakri ah dadkeenu waa dad masaakiin ah ma bixin karaan dhaqaalaha iskoolka sidaa daraaddeed waxaan markaa xafiiska maamulka aan sii qabtay tirkoob ayaa ku sameeyey ardayda wax ka barata dugsiyada degmada walweyn marka la isku daro waa 1960 arday ma wax la qaadan karaa intaas baaxadeeda leeg inay 1960 ay wax ka barato markaan taga registraynadooda ma soconays insha Allah waxaan rajaynaynaa isla sanadkan inay tiradu gaarto ku dhawaad 10 kun oo arday midda labaad
annagu ka degmo ahaan ma haysano isbitaal degmadu ay leedahay oo isbitaal ummadda u dhexeeya annaga degmooyinka nala dariska isbitaallo ayay leeyihiin waa inaan helnaa isbitaal ninna waa inuu dhagax keenaa waxaan samaynaynaa tiimam dhallinyaro ah ee ku shaqaynayo si aaway oo lacag la'aan ah iskaa wax u qabso ah xaafad walba waxaan ka qori doonaa dhallinyaro ayagoo isbitaalkaas insha allahu maalmaha food lagu soo hayla dhagax dhigi doono aan samayn doono in loo shaqeeyo jimco khamiis sabti axad tiim loo kala sameeyo aniga ah hadda ku simaa guddoomiyaha degmada wal maalinta ugu horeysa anaa shaqaynayo sidaa daraaddeed waxaan rabnaa inaan samayno arrinadoo isku tashi dalkaada u tasho waa isku tashanaynaa dhagax waa haysanaa shamiindada annagaa samaynayn shamiindada oo nuuriyadda shamiindada waa soo gadanaynaa isbitaalkeen annaga ayaa dhisanayna insha allahu jaaliyada maanta wadamada yurubiyaanka iyo maraykanka iyo aasiya waxaan ka codsanaynaa inayna kaalmeeyaan laakiin dhagaxa annagaa haysano ciid annagaa haysano shamiindaa naga maqan alwaaxa naga maqan kuwaas waxaan ka heli doonaa hay-ado caalami ah maamul goboleedkeena koonfur galbeed iyo jaaliyadda insha allahu arrinta isbitaalka way naga dhammaan doontaa bilaha fooda nagu soo hayo tan labaad waxaa rabaa waddada hadda dhismaha socda waxaa iskale idinka waddada idinka ayaa iskale cid kasta ee waddada dhaawacaysa ka ilaashada xoolahaada ma jeceshaa inuu dhurwaay cuno see loo ogolaanaa in waddada la burburiyo marka waxaan rabnaa warka aad ayaa xafladda ugu dheeraaday dhiiro badanaa i qaaday kooda lulyaa ila weyn haddaan waktiga aan idinku dheeray waa raallihaanaysiin ballanteenu waa wada shaqeyn wacan adbakiina taagdarane toosoo isku tiirsanaye adbakiina taagdarane taageeraweyne Soomaali ha noolaato Soomaali ha noolaato Soomaali ha noolaato wax badan inaan ka faa'iidnay wax badanna oo inoo taabtay aad iyo aad waan kaga mahadcelinaynaa inta qorshe howleedka dhimanna ee uu inoo sheegay waxaan rajaynaynaa oo ay ka mid tahay in la helo isbitaal ay degmadu leedahay intana waa rajaynaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan inaan helno mar haddii la joogo dabaaldega xuska waxaa lagama maarmaan ah in qaybaha suugaanta qayb ka mid ah markaasi abwaanadeenna jooga degmada Wallaweyn ay qayb nala wadaagaan waxaan halkaa ugu yeerayaa abwaanka abwaanada laashin farey abwaane waxaa ku leeyahay soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان سلام انتان انت سوق قيب قالي حفلدان سو اللي كوي حفيز كمعملك او سوق قيب قالي مسؤولين سرسرة قدوميها الدقمدة تليها بوليسكا iyo dhammaan maamulka degmada Wallaweyn salaamintaan way kala sigaaraan salaamee dhalinyarada soo qayb galay iyo hooyooyinka isboortiga dhammaan salaamintaan xafladan wali ka saabsanaaytii kulay mas'uuliyiin badan ku hadaleen marka anina way iska gaabsadee xoogaa maansi yar iyo iska gaabsadee ama gabay yar iska gaabsadee ujeediin idinka kooda luulya waaye kulunkaan ujeediin kooda luulya waaye kulunkaan ujeediin kooda luulya waaye kaaf qur'aan dhigan waaye kariin waaye ilaahay kacbada koraay naga jirtaa iyo kaamil nuurkeena koofiyo kubtaa lagu suraa kabana saantaada kamsara iyo naay kaamuun good kilooyal waaye doorada kurug waa istiraa kalaankeeda guud waaye kayfa haali kalaanka arbeed waaye koodka nii badi maayo koodaaye maxmed ali ahaanteedii keli hoos ka duleelan
oo kun abeesa korfuusho korkorow magalo aadimo kasmalaabe adi maxaa lagu kari waaye kawaliyo kaaw iyo baarle kawaan la saaraayo kariinkayga ma uumin aadimo kasmalaaba adi maxaa lagu kari waaye kuule alambajar oo iska kurta faageyso iskaalmeehayso idina kariinkayga ma uumin aadimo kasmalaaba maxaa lagu kari waaye ujeediinaan ku yidhi kowda luulya waaye idinka kulunkaan ujeediin kowda luulya waaye kulunkaan ujeediin kowda luulya waaye ka bacdi soo koobigareey reer koonfur galbeeda soo koobigareey kulunkaan ujeediin reer koonfur galbeeda soo koobigareey kulunkaan ujeediin kowda luulya waaye reer koonfur galbeeda soo koobigareey waa mahadsantihiin laashinka aad iyo aad uu mahadsan yahay waxaad moodaa inaan joogno waqtigii kama dambaysta ahaa oo waqtigu isgurayo waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dhammaan dhallinyaradii quruxda badnayd ee barnaamijka aynu ka qabsooma degmada Wallaweyn ee markaasi ku dhiiradeen dhallinyarada qurba joogta ah aad iyo aad ay u mahadsan yihiin mas'uuliyiinta maamulka degmada Wallaweyn iyaguna aad iyo aad ay u mahadsan yihiin si gaar ah oo xushmad iyo naxariis leh ayaan ugu mahad celinaynaa aad iyo aad u mahadsantiin ayaa idin leeyahay ugu horeeyo gudoomiyaha degmada Wallaweyn mudane Maxamed Cabdilaahi Koosto maadaama waqtigu isgurayo waxaan rabaa halkaa inaan ugu waco Sayid Axmed. السلام عليكم أيها الإخوات والإخوان walaalahayga muslimiinta meeshaan joogo kulligeena dhalinyarada degmada Wallaweyn oo ugu horeeyo gudoomiyaha degmada ku siman degmada Wallaweyn taliyaheena Maxamed Cabdulle taliyayaashiisa ku xigeenadiisa dhalinyarada hooyooyinka haweenka qurba joogta inta magaca Soomaaliyeed ku hadlayso waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh mid labaad waa horta maalin aad iyo aad ilaahay qiimo fiican oo noogu siiyey oo aan inaan ugu mahdino ay suurtagal tahay ay waajib nagu tahay sida gudoomiyaha oo noo sheegay wadamo Afrika kamid ah maanta aan hooyo u nahay jirto oo aan ka badbaadinay gumaysti iyo wax walba aan farooda ka bixinay hadda marka waxay taagantaa annaga jiil kasta jiil kale ayaa u dhiibaa qof kastaba qof ayaa u dhiibaa annaga waxaa noo soo dadaalay waalidiinteena aabiyaasheena madaxdeena dhalinyaradeena kowda luuli waxaa lagu sheegaa dadka aswaa la dhihi jiray niman dhalinyara oo annaga naga sii yaryar annaga maxaan ku talagalnay marka in aan u reebno dadka naga dambeeyo ama waalidiinteena oo na dhihi doono ciyaalkeena ka mid ah ama haweenkeena ka mid ah ama dalkeena ka mid ah maxaan ku talagalnay inaan u reebno marka annagana taariikha aan meesha dhigno aan rabno waayo waxa aan maanta ku faraxsanahay meeshaas aan isugu imaanayna Soomaaliya min gees cirif ilaa cirif loo hambalyeeynaayo ragaa dhiigooda ku baxay ragaa u dhaawacmay ragaa u naafooway gabdha asaay loo saaray war fiiri annaga marka maxaan ku talagalnay xaawataako dumar ay ahayd haddana maanta taalay leedahay meel ay taagan tahay dagaalkaas iyo hawshaas ay ku jirtay maanta la iskama kayna soo gaarin sida gudoomiyaha oo noo sheegay way iskama kayna soo gaarin banaanka anagoo joogno xorbaatiina baxna lama dhihin waxa aan ku soo gaarnay waxay ahayd dhiiggeena waalidiinteena iyo walaalaheena aan ku soo gaarnay intaas ku soo gaarnay horta ilaahay aan mahad iskale taariikhda dunidana way sii qormaysaa baal laabmaya mahan baal maalin kasta waxaan lagu daro u baahan waay 24 saac waxaad ku darsato ama xumaana ama samaana ayay ku kaadinaysaa marka anoo ka faa'iideysanayo kowda luulyo iyo arrinteedaan ka faa'iideysanayo waxaan u sheegaa Soomaaliya marka hore waxaan idhaahnaa qof hebel baa saasa qof hebel kaase inta iska dhaafno qof waliba naftiisa iyo dadkiisa iyo dalkiisa dadka noo soo halgamay taalay noo dhigan annaga inaan u sameeyno dadka naga dambeeya taala noocaasa oo ay annaga ay noogu duceeyaan aanan noqonin kuwa habaar qabaha markaan dhiman ay soo habaaraan dadka ay qabriga naga soo habaaraan marka walaalayaal waa maalin aad iyo aad u weyn oo aan la soo koobi karin gooni gaar ahaan waxaan ka codsanaynaa madaxda dalka oo maanta oo igu sokeeyo gudoomiyaha degmada Wallaweyn oo igu sareeyo Maxamed Cabdilaahi Farmaajo inta u dhaxayso waxaan rabnaa in kowda luuliyo afka aan ka sheegana aan baxno maya waalidiinteena noo soo dhig khayr Allah noo sii idinkana inaad noo soo dhigtaan mid taas lamida taale annagana aan ku dhahno mas'uuliyiintii maamulka noo hayo waagaas ay saas ahaayeen taaladaas ay noo soo dhigaan aan dhahno hambalidaas aan idin soo jeedinaan rabnaa ma naga qaadeen marka
qof kasta oo walaalkeena oo maanta xil hayo ama mas'uul ah waxaan ka rabnaa taaladii oo noo dhigo ayaan u qoraynaa kow magaaladeena baahiyooyinka badan ay qabtay inaan rabay maanta inaan meesha ka sheego khayr allah sii gudoomiyaha sheegay baahiyooyinka isbitaalka wax waliba wax kasta marka waxaan u baahannahay sida caafimaadka asaga waxa uu sheegay maalinta ugu horreysa inuu shaqaynayo annagana waxaan ka codsanaynaa inuu maalin kasta firdhayo uu shaqeeyo oo meeshana la taagnaado oo isbitaalkana la dhiso marka walaalahay tihiin hadal idinku badi maayo waa qiiraysannahay waa maalin aad iyo aad noogu weyn qof walibana ha ku talagalo dunida baalka ku yaallo in uu ku qorto wax wanaagsan oo ku talagalo waayo qof kastaba xaawataaka waxay ku soo hormartay maanta loo xusaayo magacyada loo sheegayo madaxweynaha Soomaaliya xataa uu agtaada markuu marayo uu kor u fiirinayo ugu duceynayo waa waxay ay geysatay annagana intaas in lamid aan la istaagno war qabiilka waxba ma taro muxuu ahay qaranka wax noo taro kala gogo wax nooma taro qabiil hadduu wax taraayo 30 sano maxaa dib noo dhigay annagoo Afrika hooyadeed ah in maanta badeena la qabsado maxaa nagu kalifay 60 sano kadib waxaa nagu kalifay qabiil iyo qabsi madaxda qarankeena waxaan ka codsanaynaa ayagana taalada ay hadeer ka dhigaan badeena Soomaaliyeed oo dhulkeena la haysto la soo hunguriyay taalada ay ka dhigaan ayaan baalka dahabka ugu qoraynaa ama cadawga siyaano ama noo soo dhaciyaan wabillahi tawfiiq Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato gaar ahaan reer Walweyn gacmaha is qabsano ha noolaato marka koonfur galbeed waxaan u hambalyeynaa inta maamulka meeshaan joogto koonfur galbeed inta ka sii sarreyso wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته maanta waa maalin ugu weyn maalin ummadda Soomaaliyeed ku weyn oo ka soo wareegtay 60 sano 1960kii waa halkan hambali u marayna ummadda Soomaaliyeed dhammaan meel walba ay joogto waxaan halkan ka salaamay marka hore madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha koonfur galbeed mudane Maxamed Cabdiis lafta gareen hambalyo ayaa idin leeyahay waxa dhammaan halkan uu hambaleynayaa maanta shacabka ka soo qayb galay xafladan aad ku qurux badan waxa xafladan u horseeday hormuudka ah madaaleena gudoomiyaheena Maxamed Cabdullaahi Koosto madaxweyne gudoomiye waa ku mahadsan tahay mar walba sida adiga shacabkaaga degmada Walweyn oo hormuud ugu tahay waad ku mahadsan tahay waxa mahad balaaran kala ujeedinayaa qurba joogta degmada Walweyn ayaan u mahad celinayaa oo gacan weyn ay ka geysatay ugu horeeyo Cabdiraxiin Daafeedow iyo Bila Boqortooyo dhammaan asxaabta kale gacan ka geysatay aad ayaan u hambaliyeenaa waxaan leeyahay hambalyo waa mahadsantiin aad iyo aad u mahadsanyahay sayidka wax badan waa uu ina soo xasuusiyay malaha waxaad moodaa waqtigii inuu aad iyo aad isku gurayo oo salaadii maqrib ay soo dhowdahay barnaamijka waa iska soo xireynaa laakiin intaana soo xirin ka hor waxaan rabaa inaan u mahad celiyo isla markaana aan bogaadiyo dhalinyaradii barnaamijkan xilka iska saartay ay u badnaayeen dhalinyarada qurba joogta ah Cabdiraxiin iyo Bile iyo Daay iyo Maryan iyo Maama Sahro iyo dhammaan dhalinyaradii kale ka qayb qaadatay aad iyo aad u mahadsan yihiin maamulka degmada Walweyn oo iyagana taageero buuxdo iyo markasto garabka ay nala taagay iyaguna aad iyo aad u mahadsan yihiin ugu dambeyn Soomaaliya maxaa dhahdeen Soomaaliya maxaa dhahdeen aad iyo aad u mahadsantihiin xafladan quruxda badan ayaa ka soo qayb gashay halkaan ku soo xireynaa aad iyo aad u mahadsantihiin